السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو halkan waa ka sheekaysiin caadiga ah markaas wax iska daygayna waxyaabaha jacayl oo wanaagsan inaan ummad u geeyno waxaan jecelahay oo wanaagsan oo inaan ummad la sheekayo maanta waxaa la joogaa sheekh Faarax Cabdi Jaamac marka khayr Allah siiyo waa iimaanka masjidka ku yaala sida oo magaciisa la yiraahdo masjid Shaafici aniga inta badan dhalinyarada sheekada marka la joogo ma sha Allah magacaasana ila qaybsadaan waan aqaana akhyaarta la joogo magacyadooda laakiin Soomaaliya waan hay'ad baa wax qaybsanaa wax ka soo qaybsanaa ma sha Allah marka maanta wuxuu qodobo ku saabsan faa'iidada ay soonku leeyahay iyo wuxuu nooga dabageenayaa iyo fadligeeda nooga dabageenayaa hadii la idmo ka faa'iideysta naftiina iyo naftayna ka faa'iideysta please share gareeyana assalaamu alaykum warahmatullahi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيدا ولالكان إنو شيغي وحان كسابسنا كلمات كان وان كغشيكين إنها رمضان صومكو فضلق أولية كدبنا وحان كلمات كردها إنها ميراها لقيه لي صومك كدبنا كلمات إن آخر كاوحان نقون إيسا فضلك طبعا كدما إليدا هدان كور مرة ولا ليال فضائش صومك يسرت كجرتا وأرمو إلهي سبحانه وتعالى ومربضا أما النبي قالنا صلوات الله وسلامه عليه إنه الشيخي سان أكسونا صومك هو ركن من أركان الإسلام تيرك شنطة تيرك مدون حديث النبي عليه الصلاة والسلام واتوها بني الإسلام على 5 marka ugu dambaysa uu lahaa wasawmi ramadaana bisha ramadaan oo la soomo soomku waxaa ka mid ah faa'iidooyinka uu leeyahay ama fadliga uu leeyahay siyaamu ramadaan iyo qiyaamka habeenka la istaago gaar ahaan laylatul qadriga waxay ku tusinaysaa qofka iimaankiisa sameynaya nabiguna wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam man saama ramadaana iimaanan wa ihtisaaba qofkii ramadaanta soomay isagoo alla rumaynaya ajna gurubsanaya ghufira lahu maa taqaddama min dembihi waxaa loo dhaafayaa dembigiisii wixii hormaray oo ah saqaa'irtii sidoo kale waxaa ka mid ah marka waa dembi dhaaf dhinacaas fadliga labaad uu leeyahay saddexaad uu soomku leeyahay waxa weeye laa yacdilu ajrahu ajru shayin min camali ibni aadam wax ajarkiisa soomka u dhigmaa ma jiraan maxaa yeeley xadiisul qudsiga waatuu ahaa الصوم لي وأنا أجزي به صومك أنا إسكاله أنا كأبال مرينيا فإذا أفراد فضلك أفراد أصوم كلية وحوية وقاية لنفس الصائم من اتباع الهوى قفك صوما بوحك إلى لنيا نفس سوحي جعلت إنه راعه ودن بأها أما نفس سوحي جعلت بوك إلى لنيا إيو ومن عذاب الله في الآخرة آخرنا وحك إلى لنيا عذابك إلهي أرنت النبي عليه الصلاة والسلام وحوته يري الصوم جنة soomku waa gaashaan cadaabka aakhirana gaashaan buu ka yahay adduunka inta la joogana acmaashii xumayd ayuu gaashaan kaaga yahay oo qofku markuu sooman yahay waa soomanahay buu dhahaya uu isqabanaya haddii la caayo waa soomanahay haddii dembi laga sheekayo waa soomanahay marka waa wiqaayo qodobka shanaad waxa weeye qaadicun mu'aqatun lishahwati nikaax wuxuu jebinayaa shahwadii nikaaxa wa sababun lilcifati watahaara dhowrsooni ayuu sabab u yahay maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo isaga ilahan marka dhalinyarada markuu la hadlaya man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj fa innahu aqaddu lilbasar wa axsanu lilfarji waman lam yastadic fa calayhi bisoom qofkii aan awoodin marka ha soomo waa tuula saas daraadeed wiqaayo waa qodobka lixaad waxa weeye muhadabun linafsi saa'im qofka sooman naftiisa ayuu tarbiyeynaya waa sifaynaya mumsikun calayhi lisaanahu wa jawaarixu can qowli zuur qofku markuu sooman yahay carabkiisa wuu ilaalinayaa jawaarixdiisana dembiguu ka ilaalinaya sidaa daraaddeed naftiibuu tarbiyeynaya idaa asbaxa axadukum yowman saa'ima falaa yarfuth walaa yajhal fa in imru'un shaatamahu aw qaatalah falyaqul innii saa'im saaha ku dhaho waatuu lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam qofkii markuu waa bariso isagoo sooman yuusan dembi samaynin yuusan jahalnimo samaynin haddii qof la dagaalamo ama caayo ha dhaho waa soomana sidaa daraaddeed soomkii waa muhadab linafsi saa'im uu ilaalinaya sidoo kale qodobka 7 faaqa saa'ir alcibaadaat wuxuu ka kor noqday dhammaan cibaadaadka oo dhan soomku maxaa yeelay fadiiladiisu waa bitaxaquqi fadiilati sabri sabirkii ayaa ku jira
waxyaalihii mubaaxaadka ahaa iyo dembigii iyo wixii o dhan bu qofku ka saburaya, naftiisiiba meel buu ku haya. sidaa daraaddeed nabigu calayhi salaatu wasalaam isagi lahaa assawmu nisfu sabr, waa sabrka barkiis. qodobka sideedaad waxa weeye oo fadliga soomka ka mid ah, waa sababun waa sabiilun lidukhuuli ljannati min baabi rayaan, waa wadada jannada loogu maraya baabu rayaan. maxaa yeelay nabigeena calayhi salaatu wasalaam waatuu noo sheegay albaab layahdo albaabada jannada oo rayaan layahdaa jira, laa yadkhuluhu ila saa'imuun. kelmadeenna maanta intaasaan ku koobaynaa oo ah fadliga soomka uu leeyahay. wabillahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. xeer inoo yaalla baan isku macsalaami jirnay sidayna caadiga ahayd, meel alle meesha kusii marisay waxaan ku leeyahay kasii mis. laakiin haddii wax wanaagsan tahay ku soco, ya haddii naftuna ay taxaana dee meel ay kugu sii wado xan, dad dhibaatadiis, dad lugoyntiis, dad wax yeelitaanka, haddii dhibaato ay kugu sii wado, ya waxaan ku leeyahay naftaada iyo taydaba waxaan kula dardaarmaya iska daa ilaahay khayra ku siiye. asalaamu calaykum waraxmatullahi